Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa salaamayaa dhammaan asxaabteeda ku taxan barahayga bulshada. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay walaalayaal, gacmo furan ku soo dhawaada. Waxaan ku soo jirnay muuqaaladii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlaynay mashruucii hoteelka ahaa ee aan ka dhisaynay magaalada Kismaayo ee Holaal Hotel Project. Waxaan ku soo jirnay qeybihii ugu dambeeyayna aan ka hadlaynay labadii muuqaal ee hore. Backfilling ayaan soo sameynaynay. Backfillingka lakabkii ugu dambeeyay ama layerkii ugu dambeeyay ayaan maanta ka hadli doonaa ama maanta ay tahay shaqadeena. Layerkan ugu dambeeyo waxaan saaraynaa carrakaawo. Waxaad xasuusataa labadii layer hore kii koobaad inaan carra ciida ama sand caadi aan soo dhignay, kadib aan hardcore filling aan sameynay layerkii labaad ama lakabkii labaad. Kanna waa final layer weeye, waxaan isticmaalaynaa carrakaawo. Carrakaawo caadi ayaa isticmaalaynaa oo la qooyay si fiican loo soo process gareeyay. Waa kuwa shaqaalihii oo ku shubayo hadda bay ku diyaarsan tahay. Waa kuwa shaqaalihii oo diyaarinaya carrakaawadii. Marka carrakaawadan waa ujeedaa jay ayaa ku dhex jirjiro, wakaa ninkaas spreading buu sameynayaa, wuu fidinayaa. Marka carrakaawadaas ayaan u isticmaalaynaa lakabka ugu dambeeyo backfilling. Waxaa xusud mudan inaan isticmaalayno blade compactor si compaction fiican loo sameeyo. Compactionkan blade-kan u isticmaalayno xoogaa wuu ka yara awood badan yahay kuwa normalka oo caadiga oo 80 kg ah. Midka hadda anaga isticmaalayna waa mid Turki ah, waa arki doontiin insha Allah tacaala. 170 kg weeyaan. Waa kana ninkaas operator-ka ama darawalka ay wadayo, waa nin professional ah. Ciidi wata way qoyan tahay, waa la soo process gareeyay. Wakaa bahalkan waa blade compactor caadi ah laakiin Turki ah. Xoogaa culeyskiisana weightkiisana waa 170 kg waaye. Marka muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay intaas final layer inaan dhigayno ayuu ku saabsan yahay muuqaalkeena. Carrakaawadaas ayaana isticmaalaynaa. Waxaana compactionka ku sameynaynaa blade compactor kaas Turkiga ah 170 kg ah. Soo dhawaada walaalayaal, waxaan filayaa inaad si fiican ila socotiin. Kan ayaa noogu dambeeyay insha Allah tacaala layeradii aan ka sameynaynay backfillingka. Halkan wixii ka dambeeyo waxaan dhigi doonaa BRC ama birti feersaydahayd, kadibna ground slab ayaan shubi doonaa. Sidaas inaad ila socotiin ayaan rajeynayaa. Halkan markii la joogo lakabkan ugu dambeeyo waxaa muhiim ah in si fiican loo sameeyo compaction. Si fiican loo compact gareeyo. Ujeeda anaga hadda ninkaas wuxuu amrayaa in spreading si fiican la sameeyo. Marka compaction kan wuxuu saacidi doonaa in carradii smooth ay noqoto, carradii is dhex gasho, maxaa la jiray surface-ka korona uu smooth noqdo si aan u shubno. Marka waxaan filayaa inaad si fiican ila socotiin. Intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkeena. Waana compaction waxa loo yaqaano final layer insha Allah tacaala. Shubka ayaa noo balana iyo birta on talaalno. Birta on talaalno ayaa noogu xigi doona insha Allah. Assalaamu calaykum.